السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijyadeena caafimaadka oo aan kaga soo gudbino bogeena bukaan deeq clinic magaciigana waa Dr. Shariif Xidig hadii ilaahay ma muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qanjirka dhuunta qaybteeda hore ku yaala ee lagu magacaabo thyroidka shaqada uu qabto ciladaha la soo dirsa iyo sida lagu garto xanuunada noocyadooda kala duwan ee ku dhaca qanjirkaasi ama loo kala saaro iyo ugu dambeyn talada ama dawada ku haboon bukaanka xanuunada qanjirka thyroidka ay la soo dirseen ugu horeyn qanjirka thyroidka waxa uu ku yaala qaybta hore ee dhuunta tracheada ama doobada qaybteeda sare ee soo muuqata wajiga ku aadan qanjirka waxa uu egyahay wax lagu magacaabo butterfly ama balanbaalista ayuu u egyahay waxa uu leeyahay laba luubis oo u eg ama shaabaha baalka iyo qaybta dhexe oo lagu magacaabo isthmus inta kadib qanjirka miisaankiisa marka uu normalka yahay oo wax cudura oo san qabin waxa uu dhaxeeyaa 10 ilaa 15 gram inta u dhaxaysa qanjirku wuxuu soo daayaa hormono lagu magacaabo calcitonin T3 iyo T4 kuwaas oo shaqada ugu badan ee jirka qabta ma jirto xubin ama unug jirka kamida oo qanjirka thyroidka oo san shaqo ka qaban shaqada ugu balaaran ee uu qabto waa xadeynta wadna garaaca qofka caafimaad qabka ka qayb qaadashada caafimaad qabka ee maqaarka fertility-ga oo ah xagga dhalmada iyo dheefshiidka cudurada ku dhaca qanjirka thyroidka waxa kamid ah goiter oo ah qanjirku inuu aad u bararo marka qaar qofka oo wax xanuun ama wax calaamada aan lahayn in qanjirku uu iska bararo qofkuna uu taabto barar saaran dhuuntiisa waxa ugu badan ee sababana waa cusbada qofka oo yaraata sidoo kale waxa kamid ah Graves disease wax lagu magacaabo kaas oo ah immunity-ga jirka inuu isla jirka dib u weeraro oo qanjirka weerar ku qaado isla markaana qanjirka uu la kulmo caabuq uu keeno wax lagu magacaabo thyroid stimulating immunoglobulin kaas oo ah isla difaac jirka in uu weeraro qanjirka si qanjirkaasi uu soo saaro hormoon fara badan dhiigan loogu daayo marka kadibna qofkaasi ay la soo dirsan wax lagu magacaabo hyperthyroidism oo ah in qanjirku shaqadii aad u badiyay sidoo kale waxa kamid ah thyroid cancer oo ah cancer inuu ku dhaco qanjirka thyroidka thyroid nodules oo ah buulal tira badan in qanjirku uu yeesho sidoo kale waxa kamid ah hyperthyroidism oo ah shaqada qanjirka inay aad u badato sidoo kale waxa kamid ah hypothyroidism oo ah shaqada qanjirka inay aad u yaraato iyo sidoo kale Hashimoto's thyroiditis oo ah isla difaaca jirka oo jirka dib u weerara iyo thyroiditis oo ah caabuq la soo dirsa qanjirka cuduradaas tirada badan ee soo weerara qanjirka waxa lagu gartaa bukaanku marka uu la kulmo dhakhtarkiisa wada sheekaysiga dhexmara ayaa inta badan lagu ogaadaa inta kadib dhakhtarka ayaa baaris guud u diray bukaanka sida indhig laga qaado hormoonada uu qanjirku soo daayo in la baaro iyo sidoo kale scan iyo waxyaabo lamida in bukaanka la saaro